بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan inaan ka hadla rabaa arrin jawaab celin u ah hadal ay 16 July ay ka hadlayeen magafayaashu iyo wixii la mid ka ahaase ay ka hadlayeen inaan haddana bayaaniyo rabaa. marka hore ummadda deegaanka Soomaalida Itoobiya Soomaalida sababta nimankan inaan uga hadlaan aan ugu jawaab celinaya aad markasta in aad fahantaan ma loo baahan yahay. waxa weeye nimankani niman horta culays ma aha, annagana culays naguma aha, dowladda deegaanka Soomaalidana dhibaato kuma aha. waa dad daab ah oo gudun baa gashan oo waxaa la rabaa in lagu gooyo danaha Soomaalida iyo nidaamka Soomaalida loo adeegsado. haddii ay wax kari lahayd gudun af lahayn baa loo adeegsanayaa oo saagashan. waxaa intaas dheer waa aalad la adeegsanayo Soomaalinimo sheeganaysa weeye, aalad weeye, waa caado qaatayaal weeye, waa damiir gatayaal weeye, waa darbi ka soo hadal weeye. tusaale ahaan xalay waxay ka hadlayeen ama shalay oo July 17 waxay ka hadlayeen laba idaacadii marka hore ay ka hadlayeen oo MMT iyo tu kale oo Waalta la dhaho. Waalta ka hadalkoodu waxay cadeyn u tahay ay marag madoon u tahay ninkii aan amaaninka dhawaan ku sheegayay ee Geetaajo ee soo dirsanayay iyaga ay makarafoonka ay u ahaayeen hadda ka hor kii in ay hadda way soo banbaxeen oo way soo cadaysteen. dadana Geetaajo ma garanayeen lahayn Geetaajo hadii aan garanayn Waalta kama bahadleen badee yar dhalinyaro hadii kii Geetaajo kuma garanayno Geetaajana lagu yeeday laha idaacaddan aad ka hadlaysid Geetaajo maamula horta taas inaad ogaato loo baahan yahay. isaga maamulo sidoo dadbanna meel laga maamulo uu isagu fariiga haya. dhinaca kale kuwan oo imta ka hadlayeen tusaale ahaan magafe khadar markuu hadlayay ama caado qaatax khadar markuu hadlayay wuxuu u hadlayay cidii meesha soo dhigatay ee ka hadlinaysa uu hadlayay Soomaali uuna hadlaynin, dana Soomaalina kama hadlaynin. hal milyan baa jiga ka soo deegaanka Soomaalida laga soo qaxiyay bula xaguu ku arkay xaguu ku joogtaa kuwaaga la qaxiyay banka daadsan ee qolaji daadsan ee dirdhaba daadsan ee maayisa daadsan ee halka iyo meeshii maxay qubbi daadsan mooyaale dakaasuuftu laga hidda salaxaad raaso dadka intaas oo dhan daadsan ee Soomaali ee qax ee soo qaxay inaad ka hadashid ma garanaysid, laakiin cidii meesha ku soo dhigatay waad u hadlaysid. kooxdii noocaga ahayd ee caado qaatada ahayd la fadhiday sidoodii waad u hadlaysay, iyaga waad u hadlaysay. oo waxa weeye mad ka hadashida Soomaalida inta degmay ka soo qaxay dad garanaysid ma garan kartid dadka xaalad ka hadli lahayd. marka ummadeen Soomaaliyeed sharafta waxaan leeyahay nimankan sababtan ugu jawaab celinay waxa weeye waxyaabahaas oo kale cidda meel soo dhiganaysa wuxuu iska dhigayaan inay Soomaali u hadlayaan, laakiin cidii meesha soo dhigatay bay u hadlayaan oo hadda wuxuu lahaa xawaday baa loo ciliyo dad ku xasuuqay waxay lahaayeen baabili bay liyo soo galay dad ku laayay ma ay soo liyo soo galay dad ku Oromo ku laayay buu lahaa magaalada lagu laayay bay lahaayeen war waxa lagu laayay ee lagu la laayay ma Soomaalidan dagaal markuu dhaco labada dhinac dhibaasho way dhici xaqiiqda dhulka taala ee colaadahaas iyo arrimahaasi waa mid la og yahay cadweey. marka in aad dhahdid magaalada baabili baa iyo nawaaxigeeda miyi qabaliyada gudaha Oromiya ee hadda deegaanka Oromiya ka tirsaneen laakiin dadka Soomaaliyeed degan yihiin guryaha lagu gubay ee 700 ilaa 800 guri ah ee dixdii ereed ee degmada erer kamid ee harar marka lagu socdo jidka dhexdeeda ah waxaasay Soomaali liyu sameeyay leedahay inaad caado qaatatid bay tusaale kugu tahay ma ayso dagaalku wuxuu ka dhacay waa qabalooyinka Soomaalida waa Soomaalidaaye iyo manja iyo dhul noocaas iyo nimcaale iyo kulmiyaal dhulku dagaal ka dhacay halkaas liyu baa dad ku laayay dad leedahay liyu madadkiisu leeyahay dadka la leeyahay ee sheegaysiin cidii ku soo dhigatay meesha si fiican baad ugu hadlaysaa horta kooxdii ku soo dhigatay kula mid ka ahayd. marka waxa weeye
daarulagu iyo hawada iyo waxaas oo dhan daliyu baa la yaal lahayd xalay taas weeyaan sababta horta nimankan aan uga hadlayno in jawaabta aan ugu celinayno marka waxa weeye ummadda Soomaaliyeedna way fahansantahay oo cidii aan luqada garanayna si fiican baa loogu turjumayaa cidii kalena waa idin fahmayna oo arkayna Maxamuud Xaaji Daahir hadaan ka hadlo oo afka idin hadlo meelaha luqada madaabadan garanay idin ka hadlana Maxamuud Xaaji Daahir waxa weeye reer Gursum Oromiya weeye magaalada Gursum buu dhashay adari iyo wax la halmaalo mananusa baan ku ogaa hadda ka hor barashadiisa haduu gadaal Soomaali asal ahaan noqdayna degmada Oromiya buu ka tirsan yahay Oromiya nimadiisuna ku ekaado deegaanka Oromiya buu ku egyahay Soomaali iyo arrimaha Soomaalida inuu ka baxo oo ka gaabsadaan yani isaga soo jeedin lahaa dadkan kale kooxda kale idin daba fadhiday idinku ku idin hadlaya meelahaas laga soo ururiyay hadlayay waxay ku hadlaysiin aad madaxweynaha iyaga aad ka sheegaysiin ama dawladda aad ka sheegaysiin shacabka Soomaaliyeed aad ka sheegaysiin kooxda u adeegayaasha ee dadka kale u adeegaysa oo geetaashi dirsanayay geetaashi waxa la halmaalay ay dirsanayeen sababtaasaan idinku jawaab celinaya oo waa dana shisheeye ka shaqayntii dana Soomaali dumistii weeye adeegayaalkii weeye dhaqankii daabka aad ku ahaydeen weeye dadkan wax Soomaalinimo iyo dana Soomaali ku fadhiyana ma aha weeyaan sababtaan idinku jawaabayo horta colaadahan xuduudaha ka taagana kuwa aad ka hadli kartaan ma aha kooxaha sidii idin soo dirsanaya idin soo adeegsanaya ee daabka u tihiin haddii ay idin soo dirsadaan mooyaane waxa weeye horta ummad Soomaali iyo ummad Oromo waa walaalo waa ehel Soomaalidu waxa la dhaqato waana bulsho aaga xuduudaha degan weeye colaadaasina ma aha Soomaalidu Oromadu waa ehel bayiin koox nuuciinan oo kala oo idaacadaha dagaalka oogaysa dadkana fahankooda khaldaysa iyo kuwa hubaysan oo iyaga ka amar qaato lamid ah weeye waxaasna way iska dhamaan doonaan nidaamkan isbedelkan cusub Itoobiya ka dhashay hogaaminta deegaanka Oromiya madaxweynuhu lama uu sareeyo Dr. Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaaraha dalka iyo isbedel doonkan cusub ee wadanka hadda hogaaminaya guud ahaan arrimahaasna way ka xun yihiin dawladda deegaanka Soomaalida waa laga wada socdaa waa laga wada shaqeynayaa xal saxana waa laga gaari doonaa xalka hadda ka hor waxyaabaha xalka loo waayay ee xal la'aanta u ahayna aad qaatooyinka nuuciinan oo kala iyo kuwa xaggooda iyo xaggii idinka weeyaan wax qaska wade idinku in aad arrimahaas Soomaalinimada lagu duminayo lagu waxaynayo daabkiina waan goynaynaa cirku inta idin jiraba idin jirta danaha Soomaaliya soo dhaxgashaan dadka suuftu dadkii lagu laayay ee shada dhow maamulkeeda lagu diray kooxaha ay la fadhidaan ay ka dambeeyeen maamulkii gudoomiyihii Cabdullaahi Sheekh Axmed iyo Maxamuud Cabdinuur iyo madaxweynaha caafimaadka ee dhalinyarada lamidka ah dadkii la laayay iyaad inagu lahaydeen liyuba dadkeegii laayay oo dad kale aad ka dhigayseen waxaan idin leenahay danaha Soomaalidu cirka inta idin jiraan laalibaladina ku ekaada laalibalada waxay garaacday wax kale waxba ma keenayso darbiya bir aan bas aasirtii ay maxaltu dhahaysa weeyaan caarada markay guri ku sameeyso guriga caarada la isku geeyo libaax ma xidhan la dhahay saasatiin adeeray idinka iyo kooxiina iyo wixii lamidka aad isku tagtaan iyo adii kalaba 8 milyan oo Soomaali adanaheega iyo arrimaheeda anaga ka talinayna anaga u tashanayna deegaanka Soomaalida u tashanaya kuwa xuduuda iyo kuwa gudaha joogaba Soomaalida iyada adanaheega ka tashanaysa kamana seexanayna kamana moogelin oo habeen yar baan joognaa nabadgeliyo waarto oo xal aan anaga gaarayna waanan ka wada soconaa dawladda aan jaarkanahay walaalahan nahay wax laga faa'iideysto halkan laga dhaxganaa looma baahna mana awoodaan arrimahaas waxaan idin leeyahay caada qaatanimadiina iskaga raasado meelahaas meelo kale caruur ku dhalatay raasada dhulka caada qaatu ka hawlgali karay ka hawlgala yaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh